إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. waxaan ku soo jirnay kitaabkii cumdatul axkaam lilimaam cabdulgani bn cabdilwaaxid ibn cali bn saruur ibn raafic aljamaaciili almaqdasiy alxambaliy. waxaan soo gaarnay xadiiska saddexaad. alxadiiu thalith xadiiska saddexeeya marwiyan waxaa laga wariyay can cabdillaahi bni camr bni caas iyo wa abi hurayrata iyo wa caaisha radia allahu tacaala canhum qaaluu waxay yidhahdeen saddexdaas saxaabi qaala rasuulullahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam waylun cadaab daran lilacqaabi liasxaabi alacqaabi cirbo dadka iskale ayay u sugnaadeen mina naari naarta xaggeedayna uga sugnaadeen. waylun cadaab daran lilacqaabi liasxaabi alacqaabi cirbo dadka iskale ayuu u sugnaaday mina naari naarta xaggeedu naga sugnaaday. ruwaadda xadiiska warida cabdullaahi bni camr ibni caas iyo abu hurayra iyo caaisha. cabdullaahi bni camr ibn alcaas aan ka bilaabaynaa. cabdullaahi bni camr ibni caas waa abtiriskiisa iyo magaciisii, kunyadiisana abu muxamed ayaa la yihahdaa sida raajixa ah. qurayshiyun sahmiyun waa nin qurayshi ah oo reer sahmi ka ah. isagiyo aabihiis camar ibnu caas iyo cabdullaahi iyo wiilkiisa labaduba waa laba saxaabi. cabdullaahi wuxuu ku dhintay magaalada maka sanata 63 sanadii 63 wilaayadii yaziid ibn mucaawiya markuu ahaa madaxda muslimiinta. markaasna 72 sano ayuu jiray. abu hurayrana horaan uga soo hadalnay, caaishana gadaalaan uga hadli doonaa insha allah. intaas kadib saddexdan saxaabi xadiidkoodu oo uu halkan ku soo arooriyay xadiidka caaisha bukhaari iyo muslim islama warin, waa min afraadi muslim, mima tafarada bihi muslim wey. riwaayadda caaisha waa xadiid saxiixa oo weynu lilacqaab min annaar way warisay, laakiin muslimaa la gooni noqday. bukhaari muslim waxay isku waafaqeen riwaayadda cabdullaahi ibni camar ibni caas iyo midda abu hurayre, labadaas isku waafaqeen. halkaas marka wahmigii ugu horreeyey oo uu ku dhacay musanifku weeye, wuuna baraarujiyey zarkashi fii tasxiixi alcumda. taaniyan halkan waxaa xadiiskan ku cad weysaqaadka in la dhamaystira inay waajib tahay. xibnaha marka la dhaqayo xibin kasta in la dhamaystira inay waajib tahay. si gaar ah lugaha ayay nas ku tahay in la dhamaystira inay waajib tahay, lugaha in la dhaqayo waajib tahay. inta kalena qiyaasay ku tusayda. cirbaha si gaara maxaa nabigu ugu caddeeyey? xadiiska sabul wuruudkiisa ahaa oo nabiga wuxuu arkay sala allahu calayh wasalam iyadoo meel saxaabada qaar ka mid unta ku weysaysteen ayuu wuxuu arkay nin ka mid ah oo meesha ciribta agteeda meel yaraho bar ah oo biyihii aysan gaarin oo bidhaamaysa ay ka muuqato. markaasuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam waylun lilacqaabi min annaar. marka xadiiska isagoo wuruudkiisu saas ahaa. tan labaad, cirbaha meelahaas godan oo cirbaha u dhow oo cirbaha iyo anqawyada iyo u dhaxayda waa meelo badanaaba dadka ay dhaafaan oy dayacaan. sidaas darteeda waa in qofku aada ugu dadaalo. lil acqaabi asha ku jirta waa cahdiya ee jinsiya maahanoo qof kastoo cirabu ku taalla ahlu naar maaha, laakiin macnaha waxa weeye waxaa naarta iska leh dadka cirbahaas uu nabigu arkayoo kale leh, oo macnaha cirbahaas sifadoodu ay tahay inaan weysaqaadka lagu dhammaystirin dadka ay ku yaalliin dadkaasaa naar le wey. alacqaab allatii sifatuha haadi, cirbaha aan weysaqaadka lagu dhamaystirin sidaas weeye. ashu waa cahdiya. alacqaab allatii sifatuha haadi. weylka cadaabka waa la yidhahdaa, halaagana waa la yidhahdaa, waadi jahanama ku yaallana waa la yidhahdaa ciyaadan billah.
xadiiskan wuxuu kaloo naqdi ku yahay iyo riddiis shiicada ahlu sunnuhu waxay ku ijmaaceen markii qofku weyse qaadana haddaan khufeyn ugu jirin lugaha in la dhaqaa inay waajibta shiicadu lama dhaqayo waa la masaxaya hay leeyihin qur-aankaana sidaas ka fahnay leeyihiin suurat lmaa-ida aayat lwudu ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum muminiinow markaad u istaagaydaan salaada wejiyaalkeena dhaqa waarjulakum ila lkacbayn ya ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuuhakum waydiyakum ila lmirfiqayn horta gacmihiinana dhaqa iyadoo xusulladu la jiraan wamsaxuu biru'uusikum madaxyaalkiinana masaxa marka waarjulakum waarjulikum laba qiro weye waarjulakum waarjulikum xafsada waxa weya waarjulakum lugahana dhaqa markaas way caddahay ishkaalna maba imaan karo ilaa waxay ku cadfan tahay faqsiluu wujuuhakum wejiyaalkay ku cadfantahay wejiyaalkana waa la dhaqay taas ishkaal male waarjulikum oo la hoos dhigay qiradaas abi camar ayay ku dhigeen shiicadu oo yidhahdeen madaxa lagu cadfay oo wamsaxuu biru'uusikum madaxyaalka masaxa waarjulikum lugahana masaxa saasay yidhaahdeen ahlu sunnuhu waxay uga jawaabeen laba arrimood arrintaas weeye qofka haddii lugaha ay ugu jiraan khufeyn waa masaxa oo markaas lugaha hala masaxo ayadda markaas waxay ka hadlaydaa dadka lugaha khufeyn ay ugu jiraan shuruuddoodiina waa noo imaan doona khufeynkuy markii la kor dhigana waxay ka hadlaydaa aayaddu in lugaha la dhaqo waa markaan khufeyn ku jirin marka la hoos dhigana aayaddu waxay ka hadlaydaa qiradaasuna waxay tusaydaa markii khufeyn ku jira in la masaxo tacaarud kama dhexeey saasna sunnada u kala cadayday waxay kale ku jawaabeen marka la hoos dhigo laftirkeeda waa lagu cadfi karaa idaa qumtum ila sala faqsiluu wujuuhakum waa lagu cadfi karaa oo lafdiga ha ka kor dhignaatee maxalkay lafdiga ha ka hoos dhignaato laakiin waarjilukumtu waarjulikum lafdiga ha ka hoos dhignaatee maxalka way ka kor dhiganta lafdigana waxaa loo hoos dhigay mujaawara waxaa deris la-ah wamsaxu biru'uusi ru-uusidaas hoos dhiganoo deriska ay la tahay munaasabadaasa loo hoos dhigay sidaasay ugu jawaabeen marka labadaas jawaabood ka baxsheen in la yidhaahdo qofka masaxaya waa qofka khufeyn ugu jiro iyo in la yidhaha aayaddu dhaqiday ka hadashay laakiin hoos dhigaanu waa lilmujaawara sidaas ay ahlu sunnuhu yidhahdeen sawaabkii waana dalaal shiicada warkeedu waa dalaal alxadiiu raabi xadiiska afreeye marwiyin waxaa laga weri can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuul allahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yihi rasuulku idaa tawada'a axadukum qof inin ka mida markuu weyse qaadanayo falyajcal ha yeelo fii anfihi sankiisa maa-an biyo sanka biyaha ku jiido waa sandaarsigii uma liyastanfir ha iska soo fiifiyo oo fiif inta yidhaha biyihii sanka ka soo bixiyo waman istajmara qofkii dhagax ku asajoonaana falyutirtira isdheer ha ka dhigo waida stayqada axadukum qofkiin markuu ka soo kaco min nawmi hurdadiisana falyaqsil ha dhaqo yadayhi labadiisa gacmood qabla an yudkhilahumaa intuusan gelin fil inaai weelka 3 marna ha dhaqo maxaa yeelay fa ina axadakum qof inin ka mida laa yadri ma oga ayna baatad meeshay ku bariday yadhu gacantiisu wa fii lafdi lmuslim waxaa ku sugnaa falyastanshiq ha sandaarsado falyastanshiq ha ku jiido biminkareyhi sanka labadiisa dul min almaai biya wa fii lafdin waxaa ku sugnaa man tawada qofkii weyse qaadanaa falyastanshiq ha sandaarsado xadiidka marka saxaabiga wariyey waa abu hurayra waan ka soo hadal 3 faqro ayuu ka kooban yahay faqrada ugu horeyda waxa weeye idaa tawada axadukum falyajcal fii anfihi maa-an uma liyastanfir wuxuu ka hadlayaa xugun weyse qaad ku saabsan oo ah qofku markuu weyse qaadanayo in laga rabo inuu biyo inta sanka ku jiido uu haddana iska soo fiif yidhahdo iska soo bixiyo labadaba la yska rabaa inuu biyaha marka hore sanka ku jiido kadibna iska soo fiifiyo oo iska soo bixiyo idaa tawada-a markuu weyse qaadanayo axadukum qofkiin falyajcal ha yeelo fii anfihi sankiisa maa-an biyo uma liyastanfir ha iska soo diifiyo ha iska soo fiifiyo taas waa xugun xukunka labaad oo uu xadiis ku hadlay waxa weeye waman istajmara
qofkii dhagax ku asajoona falyu tirtira isdheer ha ka dhigo qofka muslimka waxaa u bannaan sida sunnadu caddayday inuu biyo keligooda ku asajoodo waxaa kaloo u bannaan inuu dhagax ku asajoodo oo kaadi isxara midday rabta haato ma ahan biyo markuu waayo inuu ku asajooda hadduu rabo badda agteeda asagoo jooga uu dhagax iskaga asajoona dhagaxna waxaa lamida wax kasta oo 3 shardi laga helo an yakuuna daahiran qaalican hayra muxtaramin 3 shardi waa inuu leeyahy waa inuu daahir yahay shay najaasa kuma asajoo karta dhagax iyo wax kale wuxuu rabaa waana inuu qaalic yahay qaalic macnaheeda shay najaasta fujinaya waa inuu wax najaasta aan fujinayn oon caynta suulayn laguma asajoo karo waxaa ka mid ah dhalooyinka oo kale dhalo oo kale lama ogola ilaa dhalo najaasta way ka sidban maba fujinayso hayra muxtaram waa inaysan wax muxtarama ahayn lafaha xoolaha la qasho la cunay lafahooda iyo lama ogola nabigu waa diiday sala allahu calayh wasalam in lagu asajoodo dhagax digayna inta loo keenay oo digay dameera uu nabigu diidu yidhi waa najaas marka shay najaasana lama ogolo shay muxtaramana lama ogolo lafaha jinniga mu'miniinta ah ilaahay buu hilib u saara marka lama ogolo in laga najaaseeyo shay haddee magac ilaahay ku qoran yahay iyo waaba kasii weyn yahayo haddee uu qasido loola qasto in lagu asajoodo waaba kufriba marka 3 shardiya la rabaa waa inuu yahay shay daahira najaas nabigu waa diiday nin saxaabiga nabigu u dirsaday 3 dhagax markaasuu 2 dhagax iyo digay dameer u keen digay dameerka nabigu waa turay innaha rijsun waa najaas innaha rijsun waa najaas adag marka waa inuu daahir yahay waana inuu yahay qaalic wax najaasta fujinaayo ee dhalo iyo wax ka sidbana lama ogola waa inuusan muxtaram ahayn shay muxtarama lama ogola lafaha xoolaha la qashay lafahooda iyo nabi waa diiday shay haddee muxtaram oo kasii weyn oo magac alle iyo qur-aan iyo ay ku qoran yihiinna taas haddee waaba kasii daran yaho ma lagu asajoo karo marka wax alla wixii ka soo lagu asajoo karo warqad ha ahaado dhagax ha ahaado geed ha ahaado waxaa laakiin shardi ah qofku markuu ku asajoonayo tira isdheer inuu ka dhigo sida xadiiskan cadeeyay xadiis muslim uu wariyay iyo ibn maaja iyo tirmidhi oo xadiiskii salmaan al-farisi ayaana si cadeynaa 3 in laga dhigo oo tirada isdheer hal lagu ma gaabi karo 3 in laga dhigo oo wuxuu leeyahay nahana rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam an nastanjiya bi aqall min 3 ahjah nabi maxamed aan naga reebay sallallahu alayhi wasallam 3 dhagax wax ka yar inaan ku asajoon shaafiicidu shardi kale ku daran waxay leeyihiin 3 dhagax waa inuu yahay izalatul ayn najaasada caynteedana meesha waa inay ka suusho la maqsadkii laga lahaa sidaas uu ahaay waxa marka isku mid ah yiraahdaan in 3 dhagax oo kala gooniya yihiin wax lagu asajoona iyo dhagax weyn oo 3 gees la geesba mar inuu ku tiro waa isku mid taasna waa xukunka labaad oo meesha iska faa'iidnay xadiis daciif ah jira oo leh qofka 3 inuu tira isdheer kay uusan tira isla ka dhigi karo duu rabo waa kaas waa daciif kaas oo kale in lagu qaldamo maan hadii dhahay man istajmara falyut qofkii dhagax ku asajona tira isdheer ka dhigo waman faala qofkii tira isdheer ka dhiga faqad ahsana wanaagu sameey waman la qofkan tira isdheer ka dhigin fala haraj alayh fala haraj wax dhiba male kaas waa daciif jaamic sagiir ku sugay waa daciif kaas xukunka saddexaad oo xadiisku hadlay waxa weeye wayda istayqada hadukum qofkiin markuu ka soo kaco minna hurdadiisa falyaqsil yadayhi labada gacmood ha dhaqo qabla an yudkhilahuma intuu sangelin labada gacmood fil inaa weelka uu ku weysa qadan ama weelka loo qoyo 3 mar ha dhaqo xukunka waxa weeye qofka waxa la rabaa muslimka markuu seexanayo inuu diyaarsado biyo uu hadhow ku farxasho oo marka uu soo kaco ama tubo hadii socotana tubada uu ku dhaqdo hadii kale biyo kale ku dhaqo laakiin waxaan la ogolayn weelkii inuu gacanta galsho biyihii gacanta u galsho oo mesela fuusta biyo ugu jira ama weel saas oo kala haduu yiraahdo marka iyadii ka darsana gacantiisu haday gasho waa dhibaato ama weel kale tuu rabo inuu ku weyst qaato uu gacantiisa gasho sagoon dhaqin waa dhibaato saas darteeda haddaan tubo iyo wax u diyaarsano jirin oo qofkaan heli karin tubo iyo waxaas waxa fiican inuu weelba biyo ku sii shubto intuusan seexan sababtoo ah waa xaraam inuu gacanta galsho weelka asagoon 3 goor dhaqin marka nabi wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam qofkii hurdada ka soo kaca labadaas calaacalood waa inuu 3 goor dhaqo intuusan weelka gacanta gelin weelkii uu ku weysa qaada lahaa miisaal hurdadaas marka waa hurdadee jumhuurta culimada shaafiicidu ka mid tahay waxay yiraahdaan waa hurdo kasta habeen iyo maalin mid rabta ah imaam ahmed iyo daawud al-zahiri waxay yiraahdaan waa habeenkii hurdada ah waa habeenkii hurdada ah waxaana raajixa qowlkaas imaam ahmed
oo maxaa raajix ka dhigay waxaa cadaynaya riwaayada Tirmidhi iyo Ibn Majah ay wariyeen inay habeenkii tahay oo leh idastayqada ahadukum min al-layl habeenkii markuu soo kaco wax kale oo cadaynaya tacliilka oo uu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam fa inna ahadakum qofkin la yatri ma oga ayna meesha baatad ay ku bariday yadu gacantiisa baatad marka waxa loo isticmaalaa habeenkii uu bariyay qofku halkaas uu ku bari labadaas arimood cadaynay waa habeenkii marka baqidaanu ma waajiba mase waa sunno imaam Ahmad wuxuu yiri waa waajib sidaas uu ku tagay waa waajib aymada kaleeto waxay yiraahdaan waa sunno in badan oo kamid imaam Ahmad waajibnimada wuxuu ka fahmay amarka falyaghsil hadqo waa amar ficil mudari' oo lam amar la galiyay amar way amarkuna wujubu faa'iideeyay hadaan saarif leeyahay daliil ka sarfinayana ma hayno ilmadan kala dhahayda waa sunno waxay ilaahdeen saarif waxa ah tacliilka cudur cilada lagu cileeyay xukunka oo ah qofkan xalay markuu seexday gacantiisu meel ay ku bariday ma oga hadaba xalay dhan meel booga inuu xogay maal ay markaas gacanta ula galay ama dhiig ama meel nijaas ay ku dhacday waxay yiraahdeen waa shay oo ah dhanni cilada oo xukunka lagu dhisay ayaa dhanni ah dhanniguna asalkii looga kama suuri karo asalku daahir waa gacanta inay daahir tahay marka haduusan najaaso ku ogeyn duu najaaso ku ogeyn laga wada hadli ma inay waajib tahay inuu dhaqo tuusan gelin ee haduusan najaaso ku ogeyn waxa weeyaan dhanni weeye cilad oo shay muhaqqaq maaha asalkuna waxa weeye yaqiinta inaan laga suulin oo asalkaas lala saaxiibo marka waxay yiraahdeen culimada waajibka tiri markastuu qofku weyse qaadana inuu labada saacad dhaqo waa sunno markuu hurdada ka soo kacay habeenkii maxaa marka dheeraada ilaa habeenkii markuu hurdada ka soo kacay si gooni xadiiskan u cayinay waxay ku jawaab waxay yiraahdeen marka weysada caadiga oo intuu hurdada ka soo kacay qofku markuu weyse qaadana waa sunno inuu labada saacad dhaqa hadduu iska daayana sunnu ka tagay laakiin karaahiye kuma dhicin laakiin qofka habeenkii hurdada ka soo kaca ee aan dhaqin tarkigaas waa karaahiyo intaasay dheeraad la tahay hurdada laga soo kaca sidaas ay yiraahdeen culimada kale ala ku xaal wanaagu wuxuu yahay inaad nabi maxamed adeecdo oo aadan weelka gacanta gelin adoon dhiqin labadaada gacmood wa fi lafdhi muslim waxa ku sugnaa falyastanshiqha ku jiido bimin kharayhi sanka labadiisa dul macnaha labada daloolo sanka min almaa biyaha ku jiido wa fi lafdhi waxa ku sugnaa man tawadda qofkii weyse qaadana falyastanshiq hasan daasado marka halkan waxaan ku ogaanay xukunka ah sandaarsiga amar nabigu amray inuu yahay xukunkeedu marka muxuu yahay baad culimada waxay yiraahdaan waa sunno laakiin imaam Ahmad wuxuu leeyahay waa waajib sandaarsi waajib oo waajibaadka weysaqaadka kamida weey qofku waa waajib waxa ku ah inuu sandaarsado oo waliba biyaha inta jiido uu iska soo fiifiyo saasa waajib ku ah hana nabigu waa amray amarkaas wax ka sarfinayaan lama hayo kadalika waxa lamida luqluqashada xadiiskan kuma soo aroorin laakiin xadiiskii sunanka Abi Daawud ku sugnaa raqamka 144 xadiiskii Laqid ibn Sabira xadiiskaas ku sugnaa asna sago amara oo nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam ida tawadda'ta famadmid marka aad weyse qaadanaydo luqluqo afcaashiisana way ku sugnaato nabigu markasto weyse qaadana waxay soo guuriyeen saxaabadii soo guuriyay weyse qaadkiisa inuu luqluqa jiro sandaarsa jiro marka wuu amray amarkuna wujubu kana sida marka raajixa waxay tahay sandaarsiga iyo luqluqashada inay waajib yihiin oo qofka ay waajib ku tahay markuu weyse qaadana inuu luqluqdo sandaarsado culimada amarkan maxaa ku sarfideen markii waxay yiraahdeen waxa jira xadiis nin reer baadiyaha nabiga u yimid sallallahu alayhi wasallam oo weydiiyay weysaaqadka oo nabigu yiri tawadda kama amara Allah oo tawadda kama amarka Allah sida ilaahay ku amray weysa qaado sida Allah amray waxa yiraahdeen waa aayadii suuratul maa'ida ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salati faqsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn kuma jirayran sandaars iyo luqluqash nabiguna taasu amray xadiiskaas saarifay yiraahdeen ilmada waajibka tiri oo qowlkooduna uu yahay qowlka raajixa waxay uga jawaabeen laba arimo waxay yiraahdeen ilaahay wajiga dhaqa ayuu yiri wajiga dhaqa markuu alla yiri sandaarsiga iyo luqluqashaduna wajiga kamid marka sida alla amray weeye luqluqashada sandaarsiga
ثانيا xukunka hadduusan kitaabka qur-aanka hadduusan ku sugnayn laakiin sunnada uu ku sugnaado oo uu wujuubna faa-ideynayo daliilkii in la qaata ilaahay baa amray oo ilahay wuxuu leeyay wamaa aataakum rasuulu fakhuduuh rasuulku wuxuu idin siiyo ka qaata marka axkaamta rasuulkuna siiyey kamid taha luqluqashada iyo sandaarsiga marka ilaahana amro nabigu markuu leeyay sida alla amray u weesa qaado sandaarsiga iyo luqluqashada kamid a sida alla amray ilaa alla yiri nabiga ka qaata nabigaana na amray labadaas jawaabood wey qur-aanka kuma jirtada ma sallimayna yidhahd oo wejigay ka mid tahay haaniyan haddii laga soo qaado fartan wa taqdiiran qur-aanka inaysan ku caddayn sunnada waxaa lagu sheego in la qaato alla amray calaa kulli xaal luqluqashada sandaarsigu marka sidaas waxaa ka muuqata inay waajib yihiin xadiiska waxaa kaleeto ku cad macnaf aada u muhiim ah waa maxay najaasada marka la dhaqayo shaygii najaasadaha waa inaan la dhex gelin biyaha ee biyaha kor laga soo daadiyo shaygii mutanajiskaayo najaasadu ku dhacdayna uu hooseeyo oo biyuhu inta kor uga yimaadaan gadaal hoos ay u daataan halkee laga fahmay halkaas waxaa laga fahmayaa nabiga sala allahu calayh wasalam gacantii oon weliba aan najaasada lagu hubino habeenkii markuu qofku hurdadu ka soo kacay nabigu wuxuu uhi weelka yaan la dhex gelin ee marka hore hala mayro marka dhexgelintu waa inay wax fasahaadinaydo oo aan dahaaradii kusoo xasileen wey culimada badan way baraarujiyeen xadiiskan markay sharxayeen sida ibnu cadaar oo kaleeto sharxiisa uu cumdaha ku sharxay calaa-udiin ibnu cadaar cumdaha wuu ku baraarujiyey markuu sharxaya kitaabkiisa alcudda fi sharxi lcumda alxadiiu alkhamis xadiidka shaneeya marwiyin waxaa laga wariy can abi hurayrata radia allahu canh ana rasuul allahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yihi rasuulku laa yabuulanna yuusan kaadshin axadukum qof inin ka mid a filmaa-i daa'imi biyo fadhiya yuu ku kaadso alladii biyahaasoo laa yajri aan soconin uma intaas ka gadaal yaqtasilu uu qubaysan minhu biyo xaggiisa walimuslimin waxaa usugnaaday laa yaqtasilu yuu ku qubaysan axadukum qofkiin filmaa-i daa'imi biyo fadhiya walxaal huwa junubun uu janaabo qabo yuu ku qubaysan xadiidkan raawiga wariyey waa abu hurayra waana kasoo hadalna nabiga wuxuu leeyay sala allahu alay slam laa yabuulana yuu kaashin axadukum qofkiin filmaa-i daa'im biyo fadhiya daa-imkii waa nabigaa fasira wuxuu hi alladii laa yajri waa biyaha aan socayn biyaha aan socayn qofkiina yuu ku kaadin biyo meel ku jira barked ama balli ku jira ama war ku jira yuusan ku kaadshin qofna nahyi wey nahyiguna taxriimu keena ma waxaa loo diidayaa biyuhu inay nijaasoobayaan biyaha hadday yar yihiin oo ay ka yar yihiin qullatayn way najaas oo markay kaadidu ku dhacdana ay ku ta'afuraan oo najaastii ay ku ta'afuraan wuu najaasoobin haddee markaas biitifaaqi shaki ma laha way najaasoobin markaas haddii najaasadii markay ku dhacdo ku ta'afuro oo macnaha ay biyihii saamaydo ama ka soo urto ama ay ka dhadhamaydo ama wuu najaasoobi najaasadaas darteeda abaan loo diidin hadday yar yihiin waana xaaraan haddii biyuhu ay aada u badan yihiin biyo aada u fara badan ay yihiin oo najaasada aysan saamay karin oysan kana soo urayn kana dhadhamayn kana muuqan karin inaysan najaasoobayn najaasada ku dhacday daraaddeed waa ijmaac waa ijmaac haddii biyuhu ay biyo yar yihiin oo macnaha biyo aada u fara badan maaha qullataynna waa ka badan yihiin qullataynna waa ka badan yihiin najaasada ku dhacdaa haddaysan saamayn oysan kana soo urin kana muuqan kana dhadhamin ma najaasanaydo xadiiska nabigaana tusaa sala allahu calayh wasalam ee ibnu khusayme iyo xaakim ibnu xibaan ay wariyeen idaa kaana almaau qulatayni lam yaxmil ilkhabath biyaha qullatayn ay gaaraan ma xambaaraan waxa wey najaas macnaha ma najaasoobaan riwaayada kale ale lam yanjus taasa caddaynaa sunankuna waa wariyeen afartood marka nahyigan marka ma taxriima mase ma aha asalka nahyigu waa taxriim saarif haddaan la helin saarifna lama hayo waa marka waa taxriim nahyigu oo waa xaaraan biyo meel ku jira inta u timaad inaad ku kaadido inaad ku saxarootana waa kasii daranta sababtoo a biyuhu hadday yar yihiin waa najaasayno hanti aadan dadka ka xigin ayaad ummadii ka dayacday ood ka najaasayn saasay xaaraan ku tahay oo dadkii muslimkii waa dhibta
haddii ay badan yihiin oysan najaasoobeyna iidaagiya ku jira muslimkaa dhibay sababtoo a biyo lagu kaadiyood ogtoo qof inuu ku kaashay ama ku saxarooday hadday si kasta u badan yihiin naftu ma aqbalayda inay cabto hadday ogta dhibka dadka muslimkaa la dhibaana karaahiye maahana waa xaaraan sida ilaahay qur-aankiisa ku yidhi subxaana wa tacaala waladiina yu'duuna almu'miniina waalmu'minaat bigayri ma ktasabuu faqad ixtamaluu buhtaanan wa isman mubiina dembi weyn oo dembi cad ah ayay xambaarsadeen ilahay yidhi dadka mu'miniinta qofka ku dhiba waxaysan kasban marka muslimiinta waa dhibay qofka ku kaadiya biyahooda saas darteeda waa xaaraan in lagu kaadiyo biyo ku jira laa yabulana yuu ku kaajin axadukum qof inin ka mid a fi lmaai daa'imin biyo fadhiya alladii biyahaasoo laa yajri aan socayn uma huwa qofkii yaqtasil waa qubaysan minhu macnaha arrintu waxa weeye mubtada lasoo qadirin uma huwa shanigu waxa weye yaqtasilu inuu qubaysana minhu bihi asagaa u baahana wey bihi oo ku qubaysan ama shanaacada iyo foolxumadiiyaa la muujina oo waxa wey biyihii waa ku kaashi si kastay u badan yihin haddana inta darsada yuu le waa ku qubaysan foolxumaa ka muuqata biyihii u baahan yahay asagii ayuu asagii haddana laynaya laakiin biyuhu hadday aada u badan yihiin aysan najaasoobin haddee qubayskaas waa un ku ansaxaya riwaayadda muslim waxa weeyaan uu la gooni noqday waxa weeye walimuslim waxaa usugnaaday laa yaqtasil yuusan ku qubaysan axadukum qofkiin filmaa-i daa'imi biyo fadhiya walxaal huwa junubun uu janaabo qabo waa xukun kale oo ka duwan xukunkii hore oo gooni ah oo waa maxay qof janaabo qaba biyo meel ku jiroo fadhiyo inta u yimaado inuu ku qubaysto oo uu dhex galo taasaa nabigu diiday sala allahu calayh wasalam hadday yar yihiin mustacmalay noqonayaanba hadday badan yihiinna iidaagiyaa ku jiro dee qof muslimahu og qof janaabo qabaa biyo uu dhex galay qof kii og naftiisu way dhibsan biyahaas inay kadib isticmaasho marka iidaagi iyo dhibkiyaa ku jira saas darteeda waa xaaraan in lagu qubaysto biyo meel fadhiya adoo janaabo qabanta dhex gasho waxaa rabaa inta weel darsato meel la tagtid kusoo qubayso islaamku sidaas ayuu u ilaaliya ummadda uguna waardiyeeya sidaas ayuu u ilaaliya ummadda oo uu u waardiyeeya alxadiidu saadis xadiiska lixeeye marwiin waxaa laga wariya can abi hurayrata radia allahu canh ana rasuul allahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam qaala rasuulku wuxuu yidhi idaa shariba markuu cabo alkalbu eygu fii inaai axadikum qof inin ka mida weelkiisa falyaqsilhu weelkaas qofku ha dhaqo 7 walimuslimin muslim wuxuu gooni la noqday uulaahuna 7 midda ugu horeydaa bituraabi masxuubatun waxaa lala saaxiibina lagu daraa bituraabi caro walahu muslim waxaa usugnaaday fi xadiidi cabdillaahi bni muqafal ana rasuulallahi rasuulka ilaahi sala allahu calay wasalam qaala inuu yidhi idaa walaqa alkalbu eygu markuu afka geliyo fil inaai weelka faqsiluuhu dhaqa 7 wacafiruuhu carana marmariya athaaminata marka 8 wacafiruuhu marmariya athaaminata marka 8 bituraabi caro xadiidka abu hurayra wariyey waan kasoo hadalnay xadiiska muttafaqun caleyhiga ah lafdigan uu muslim la goodi noqdo cabdullahi ibni muqafala wariyey cabdullahi ibni muqafal kunyadiis waa abi saciid sida raajixa ah magaciisa waxa la yhaha cabdullahi ibni muqafal ibnu cabdinuh ibnu cafiif ibnu usayxin ibnu rabiica ibnu cadiy wuxuu ka mid ahaa asxaabu baycati ridwan 1400 oo nabi maxamed sala allahu alay slam baycada kula gashay geeda hoosteeda sulxulxudaybiya intuusan dhicin markii cumradii uu aaday oo laga celiyey beytka alle oo cuhmaan ibn cafaan inay dileen gaaladu warkaas oo beenaha la faafiyey dadkii nabigu ballanka geeda hoosteeda uga qaaday inaysan cararayn oo 1400 gaarayay oo xadiis saxiixu ku sugnaaday hal midoo ka mid inuusan naarta gelin inuu ka mid ahaa cabdullahi ibn muqafal magaalada basra ayuu ku dhintay sanadii 6aad sida raajixa ah waa aakhirkii khilaafadii mucaawiya wey halkaas ayuu ku dhintay xadiidka xukunkiisa uu ka hadlayo nabigeena suuban sala allahu calay wasalam wuxuu leeyahay eyga hadduu weelka afka geliyo 7 goor qofku ha dhaqo 7 goor qofku ha dhaqo maxaa loo dhaqin ma najaasa mase waa iska tacabudi un imaamu maalik waxaa laga soo guuriyaa waa iska tacabudiyo eygu najaas ma ahan sida laakiin raajixa ah waa najaas oo najaasnima loo dhaqi adilada tusaydaana oo cadcadna waxaa ka mid a xadiiska nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam duhuuru inaai axadikum qof idin ka mida weelkiisa daahir noqoshadiisa idaa walaqa fiihi lkalbu markii eygu afgeliyo
an yuqsala sabcan waa in toddoba la dhaqu daahir ku noqon kara waxaana laga dahaaro qaataa labo xadath oo janaabo iyo waxa weeyaan iyo wixii lamidka xaydkii iyo nifaaskii iyo najaas intaasaa la iska dahira marka weelkan xadath ma ku sugna oo waa la ogi waxaa soo haray marka najaas marka waa inuu najaas yahay oo weelkii najaasoobay saasuu xadiisku tusaa waxaa kaloo tusaaya inuu najaasoobay xadiiska uu nabigu yihi sala allahu calayh wasalama annahu idaa walaqahu falyuriqhu walyaqsilhu sabcan oo muslim uu wariyey markuu afka geliyo ha daadiyo wixii weelka ku jira hadday daahir uu ahaa lahaa idaacatulmaala ka imaalehe lama daadiye ee waa najaasoob marka calaa kulli xaal eygu waa najaas saasaa loo dhaqaa masaladaas waa saas idaa shariba alkalbu eygu markuu cabo fii inaai axadikum qof idin ka mida weelkiisa markuu ku cabo falyaqsilhu qofku ha dhaqo sabcan 7 goor marka 7 goor inuu dhaqo sidaas ayaa laga rabaa 7 goor inuu dhaqo wali muslim waxa uu sugnaaday uulaahuna mid ugu horeyda masxuubatun waxa la saaxiibna lagu daraa bituraab carro marka 7daas goor waxa la rabaa marka ugu horeyda riwaayadaha gabadha waxa sugnaaday uulaahuna gabalna ukhrahuna mid ugu dambeeyda riwaayadaha gabalna ihdahuna 7da mid kamida marka maxal shaydka la rabaa waa 7da mid kamida sida ugu fiican waa sidaas xadiiska muslimka oo ah mid ugu horeyda in ciid lagu daro ciidda kaligeed lagu dhaqi maaha ciidda waa la qoyn biyo lagu qoyn markaas la marmarina oo lagu fujina najaasta lagu fujina kadib lixdi kala to biyaha heed ha ka daba marto sida ugu fiican waa saas warahu muslim waxa uu sugnaaday fi hadith Abdullah ibn Muqaffal ana rasuulullaahi rasuulka ilaahi sallallahu alayhi wasallam qaala inuu yiri ida walaqa al-kalbu aygu haddu afka galiyo filina weelka faqsiluhu daqa 7 وعفروه مرمريه اثامنه markay sideedad bituraab carro karwaada hantu soo mar sideedad in lagu daro sidaasna baad culama waa yiraahdeen sida Xasan Basri oo kale to mar sideedad in la iska dhaqi karo inay banaan tahay tuseen baad culama waxay leeyihiin marka 7 goor la dhaqay marka ugu horeyda ama mar kamid ah 7 soo carro lagu darima mar ayaa waxa ku kulmaya marka weelkan ciid iyo biyo hadii la kala tiriyo marka ciid iyo biyaha 8 ay noqonayaan hadii ciidaas iyo biyahaas oo labaduba mutahhiriin labaduba waxay dahiraan hadii la isku daro mar laga soo qaadana 7 ay noqonayaan marka riwaayada 8 sheegaydaana carradii gooni u tiriday riwaayada 7 sheegaysaana carrada iyo marka biyaha lagu darayo hal mid ka soo qaad marka way iswaafaqsan carrada inta la iska daayo oomo iyo saabuun iyo waxaas ma lagu bedeli karaa ma lagu bedeli karo laba shay ba lagu bedeli karo ugu horeyn xadiiska nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam arru sheeg in naska sidoo yahay loo raaca ayaana waajib tan labaad carrada marka biyo la waayo iyo marar badan oo xataa biyo la haysto waa mudahir waxbay dahirta nijaasada way dahirta carradu oo mesela waxa kamid ah nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu ka hadlay gabadha muslimada xijaabka inay jiido oo la yiri meel najaasay soo taabanay nabigu wuxuu yudahiruhu ma ba'da dhulka daahirka ka dambeeya dahiray taasuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam sidoo kale tan nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu qofka marka uu kabta masaajidka la gali rabo ha fiiriyo haduu qurun ku arkana dhulka ha marmari oo carradu way dahirtaa marka carradu waa shay mudahir oo wax dahira laakiin oomadu mudahir maaha ee waxbay fujidaan sidaas darteed laguma bedeli karo naaskuna carru ku soo arooray mudahirna waa najaasadan aygu maadaama ay aad u adagto najaasa muqallada ay tahay waxa la rabaa in waxa weeye laba mudahir la isku geeyo bihi iyo carradii labadaba in la isku geeyo waxa kale oo muhiim ah eeyaha waa isku midka sharcigu fasaxay in la haysa karo oo midka beeraha oo kaleeto fala oo kaleeto midka waardiyaha oo kale midka xoolaha ilaaliyo oo kaleeto iyo midka beeraha iyo waxa weeyaan oo sharci ogolaada in la haysto iyo midka xaraamta in la haysto oo ayadoo waxba lagu qabsayno guriga inuu iska joogo la kolkoliyo waa xaraam sida gaaladu yeesho kulli eeyo waa isku mid kan sharcigu fasaxo haysa karo beeraha iyo waardiyaha xoolaha ilaaliya iyo midka aan la haysa karin kulligood waa isku mid waa najaas aygi afkiisi xadiiskan marka cadeey jirka kale muxuu yahay xukunkiisu Shaafici waxay leeyihiin jirka kale waa lamid oo hadduu asagoo qoyan ku taabto ama meel uu taabto ama shay qoyan uu taabto
waanu afku ka xawin sababtoo ah waxa najaasta afka haduu yahay afku waa meesha ugu sharaf badan inta kale waa ka baabul awla haduu yahay dareerku waa dhacaan jirka ku jiro dhididka ah oo afka ku soo shubmayo weey jirka kalena waa ku jira haduu qoyan yahay ku taabto marka waa isku mid بعض العلماء ku qayday afka kalena waa jira laakiin sidaas ayay yiraahdaan culimada Shaafi'iyada الحديث الصادق حديث كتطبي مروي waxa laga wari can Humran مولى عثمان بن عفان حديث كان عثمان بن عفان النبي كوري صلى الله عليه وسلم اصلا waxa ka warina Humran oo mawlisi ah عثمان بن عفان waxa la radaa عثمان ابن عفان ابن ابي العاص ابن اميه ابن عبد الشمس ابن عبد مناف النبي كان سو دعان عبد مناف halkaas iska soo dhacay nabiga sallallahu alayhi wasallam kuyadiisa Abu Amr ayaa la yiraahdaa sida raajixa ah ragii Makka islaamay markii ugu horeeyayba ayuu kamid ahaa labadii hijraba uu hijrado Madiina meesha la yiraahdo Madiina markii dambe uu hijrado markii hore Xabasho loo hijroodana oo gaaladii Makka joogta muslimiinta markay dhibeen ay cadaabeen nabiga sallallahu alayhi wasallam inay u hijroodaan wuxuu u idmay Xabasha marka koow rag u hijrooda ayuu ahaa markii dambe balad islaamiga la helay marka waxay ahayd balad xarbiya laga cararayo gaala cadow dadkii dilayda waxa loo hijrooday gaal meel xukumo oo Xabasha ah gaala markaas xukumay laakiin nabigu uu ku tilmaamay inuu markaas adli sameeyay aamin lagu yahay qofka diintiisa loo cadaabay markay tageen hadda qofka muslimka meeshu tagaba waa mubaarak waa qof barakaysan diinka iyo dacwadii madaxweynaha gaarsiiyeen waana islaami najaash marka halkaas uu jiro marka hore marka dambe Madiino dadku uu jiro kamid aha laba gabdhood oo nabi maxamed dhalay sallallahu alayhi wasallam ayuu guursaday waa sifada aan idla lil arag labada gabdhood midna waa Ruqayya midna waa Kalthum malaa'iktu way ka xishoo jirtay sidoo nabigeenu yiri sallallahu alayhi wasallam oo nabigan sallallahu alayhi wasallam mar ayadoo jilibkiisa iyo banaan yahay ayaa saxaabada gobol kamid u soo galeen dhowra soo galeen Umar uu kamid aha marka nabigu sidii ugu banaana markii Uthman soo galana wuu daboosh hadii la weydiyo la yiri intaas kula soo gashoodan ka daboolanay maxaa Uthman uga daboolanay wuxuu yiri ala astahi man tastahi minhu almalaa'ika miyaan ka xishoonin ahad malaa'iktu ka xishooto jayshul usra duulaanka culayska badnaa ee Tabuuka loo aadayay ciidanka dhaqaale aad u fara badan ta keenay ninkii ku diyaariyo aha ee nabigu uu yiri sallallahu alayhi wasallam maanta kadib wuxuu sameeyaa dhibi maayo wax uu maanta kadib sameeyo ma dhibaayo Uthman nabigu dambi dhaaf ayuu ilaahi u weydii ahad al-khulafa ar-rashidin kamid afarta khulafa ar-rashidin Abu Bakr ayaa ugu fadli badan bittifaq al-muslimiin oo ahlu sunnah ula jeeda waxa ku xiga Umar ibn al-Khattab waxa ku xiga Uthman waxa ku xiga Ali saas u kala fadli badan yihiin khilaafadana saas u kala leeyihiin waxa koow iskala khilaafada Uthman ninka la yiraahdo Abu Bakr as-Siddiq oo khilaafadiisu saasay xaq u ahayd asaga ugu horeeyay waxaana ku xiga Umar ibn Khattab oo u dardaarmay Abu Bakr waxa ku xigay Uthman oo 10 mubashirin kan nooleed waqtigii Umar dhimanayay oo Umar yiri 6daas waxa shuureeyano ha u doorteen khaliifka rasuulka sallallahu alayhi wasallam mid kamid markaas ay u doorteen Uthman ay u doorteen kadibna khilaafada markii la dilay Uthman oo khawaarij Masar ka timid dishay oo la hayda diinta Allah ku tunto kitaabka Allah san wax ku xukmeen dhahayda ayaa dishay siday u dileen Aliba ayagoo la diinta Allah u gargaarayno kitaabka la xukunkiisa laga tagay ayay gowraceen labadaas khaliifba markay dileen muslimiintu waxay la mubaayacodeen Ali ibn Abi Talib oo khaliifkii afraad aha inay u kala fadli badan yihiin sidaas oo Abu Bakr u fadli badan yahay Umar ku xigo Uthman ku xigo Alina u dambeeyay ahlu sunna ijmaaci ku yihiin iskuma khilaafsana khilaafada inay saas u kala leeyihiin oo Abu Bakr ugu horeey ijmaaci ku yihiin Uthman inuu ku xigan ijmaaci waxa dhigay Umar inuu ku xigan ijmaaci ku yihiin Uthman inuu ku xigo Alina uu ka dambeeyo sidaas ay ahayd sida fiican ay ahlu sunna u badan yihiin khilaaf yara jira ahlu sunnaha khilaafada ma in la hormariyo ahayd Uthman mase Ali لكن حق فضل ان عثمان فضل بدا اتفاق يكون اهل السنه وكمدها رجي انت نبي نولا صلى الله عليه وسلم قران كحفظيي وقت النبي ايو كمدها قران كحفظيي او قران كدن برتي 10 المشرين مد كميدو اها 12 سنه خلافه المسلمين تهي او خليف اها خليفه المسلمين
ayuu ahaa 12 sano marka 12 habeen laga reebo wuxuu dhintay hijriyadu markay ahayd 35 asagoo 90 sano jir sida raajixa baqiic ayaa lagu aas saxaabiga xadiiska wari waa ka waxa ka wariyay Xumraan oo mawlihiisi ah oo asagu uu xoreeyay oo adoon uu ahaa adoon wasagu lahaayuu ahaa wuxuu kamid ahaa dadkii laga soo qafaashay aynu tan waa islaam saga xoreeyay taabici thiqa weeye الحديث الصحيح حديث كتطبي مروي وحلا ورا عن حمران مولى عثمان بن عفان انه حمران لو عليني انه حمران راى وحو اركي عثمان دعا اسقو او ييري بوضوء بيا لو ويسقاطو وضوء marka la yiraahdo la kordhigo waa biyaha lagu weysaqaato hadii la godo la yiraahdo wuduuna waa ficilka weysaqaadka ficilka aad sameynaydo way marka bi wuduun biya lagu weysaqaato ayuu yeer fa afraqa wa ku soo shubay ala yadayhi labadiisa gacmood weelkii soo jaleeci fa afraqa wa soo leexiyay weelkii ala yadayhi labadiisa gacmood ayuu ku soo leexiyay min inaahi weelkiisii ka soo leexiyay wa ku soo shubiyo ku shubay way fa afraqa wa ku shubayo wa soo leexiyay ala yadayhi labadiisa gacmood min inaahi weelkiisii فغسل وادقيهما لبدي على علود 3 مرات صدح مر قفك ويسقابا انه فرحشو صدح مر اي حديثك كوغو ثم اكل وغري يمينه غعنتيسي ميدغتاهد في الوضوء بيل ويسقادنا ويلكا ويل افضل لارن غعنتو سو درسدي ما كبيها انت ويل افضل لارن ايو كجرا غعنتا لا درسدو سدا سنادي وي ee wax ka dhibay mayso biyo ثم تمضمض واللقلقدي وسطن شق بيه يسنك كجيدي وسطن تروان اسك سو فيفي حسن وا سنه النبي صلى الله عليه وسلم ان واجب تاني وسو اوغان اللقلقشده سندارسي ثم غسل مركب امس غرو اللقلقشده سندارسي حديث كان كما عدا لكن حديث كسو سوده عبد الله بن زيد بن عاصم كاسي نوغو عدا دونتا انه صدح غورتا اللقلقشده iyo سندارسي هل صعبنا لقلقلقن قيب كميده قيبنا لو سندارسن كو hadana sacab kale ayaa lagu sandaarsan hadana sacab kale qaybna lagu luqluqan qaybna lagu sandaarsan saddexda goor sidaas ay noqon xadiiska soo socdaan ka arki doona insha Allah ثم غسل وجهه دقي 3 صدح مر وجهنا waxa la yiraahdaa tinta meesha ay ku dhamaato madaxa tintiisa iyo wajigu iska saaran yahay laga bilaabo ilaa laftaas garka ilaa dhegta laga bilaabo ilaa dhegta kale inta soo muuqato qof markuu soo dayayo in la dhaqaa waajib in badan dadku way ka tagaan dhagaha iyo daanka kale meelaha u dhaxeeyay aad ay uga tagaan waa dayaca way saqaadkiina ma ansaxaya markaas wayadayhi labadiisa gacmood uu dhaqay ila mirfaqayn labada xusul ayadoo la jiraan 3 mar uu dhaqay gacmahana hal gacanuna biyaha ku soo qaaday ila mirfaqayn ila baas بعض العلماء waxay yiraahdaan ilaada asalkeeda waxa la ogsoon yahay intihaa macna la yiraahdo faa'iidada بعض العلماء حيرا marka marmar ay ku timaado bimaana ma'a agoonta maalkooda kale markii laga hadlayo wala taakulu amwaalahum ila amwaalikum agoonta maalkooda cunina ma'a amwaalikum maaliyalkin idinko ay la jiraan marka bimaana macna waa ku timaado hadeerna xadiiskan markay ku jirto iyo aayada suuratul wudu aayada wuduga ee suuratul maa'ida aayatul wudu ee suuratul maa'ida ku jirta إلى المرفقين دوا بمعنى مع المرفقين أو بمعنى مع فائدين سيدا سيدين معنونا وحاوين حالا دقا حصول انت لا دقا يواجب كاي كميتا هاي لكن انتهاء اللفتك سيدين لو دايو مانع ماهن حصول الله إن لا دقا أو لغا ويكو سغنانا اللقادنا ويكو سغنانا إسا أو اللقادة والغا فهما أو اللقادة ديدي مي ناسنا ويكو سغنانا حصول الله إن لا دقا اللقادة ديدي ميدو انتهاء شيئان أي jarto ilaado geeska ugu sokayna waa ku dhamaa karta geeska ugu sheeyna way ku dhamaa karta midal hadii leeyahay ila mirfaqayn mirfaqa xusulka dhanka oo dhudhunka soo xigana ilaada intaag waa la dhihi karaa dhanka cududda xigana waa la dhihi karaa labada waa la dhihi karaa midal hadaan iraahdo sirtu ila muqdisho waan socdo ila muqdisho laga gaaro socodkaygaas muqdisho ku dhamaaday intaag waa saas laakiin muqdisho dhan ku uga dhamaaday ma suuqa xooluhu miyuu ku dhamaaday geeska aan ka galo dhanka balcada miyuu ku dhamaaday ma dhexbartanka iyo wuxuu ku dhamaaday xamar weyne ama se bakaaro
oo wuxuu ku dhamaaday geeska ugu sheeyo madiina intuba wax weyn luqada waa ku ansaxayda marka ilaada intihaa hadii laga dhigo ma diidaydo in xusulkii la dhago sunnadana waxaa ku sugnaaday xusullada in la dhaqo nabigu dhaqay sallallahu alayhi wasallam waxaana ku tusaya xadiidka saxiixa ah ee Nu'aym ibn Abdullah al-Mujmir uu ka wariyay Abu Hurayra xuri Abu Hurayra arkayuu isagoo weysa qaadanaya wajigu dhaqay waa dhameystir weysa qaadka labada gacmood gacanta midigta uu dhaqay thumma ghasala yadahu al-yumna hatta ashra'a ila u guda galay fil udud ila u guda galay ta xusulkii dhaqay thumma al-yusra hadana gacanta bidixda heedu dhaqay thumma yadahu al-yusra hatta ashra'a ila u guda galay fil udud thumma masaha ra'sa madhiisu masaha thumma ghasala rijlahu al-yumna lugta midigu dhaqay ila hatta ashra'a ila u guda galay fi saaqi shashada thumma rijlahu al-yusra bidixdu dhaqay hatta ashra'a fi saaq ila shashada inta anqawada dhaafay uu shashada guda galay thumma qala Abu Hurayra wuxuu yiri hakada ra'aytu Rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam sidaan ku arkay rasuulka yatawaddaa xaal uu weysa qaadan diskas Imam Muslim saxiixiisa ku wariyay raqamka 602 xuku cadiya marka xusullada in la dhaqo oo Nabi Muhammad dhaqay sallallahu alayhi wasallam marka xusullada waa la dhaqaya waa in xusulka la wada dhaqo thumma masaha wuxuu masahay Uthman bi ra'si madhis meeqa goor masahay ma maru masahay ma saddex masahay meeqo masahay xadiidkan Uthman ma cadayn inta uu masahay laakiin hal mar inay tahay xadiidka soo socda Abdullah ibn Zayd noo caday doon thumma ghasala wuxuu dhaqay kiltaa rijlayhi labada lugood mid kasto kamid ah salaatan saddex mar uu dhaqay lugaha dad badan biyo iska shuban ma tiriya laakiin taas sunnadii nabiga khilaafsan saddex mar waa in lugtiba la dhaqa mar inta biyaha lagu camiimo wasaqda laga fujiyo waxa weeyaan fartaas faryartaana oo gacanta bidixdaana ah faraha la dhixgeliyo marka la dhaqayo faraha laba farood kasta la dhixgeliyo hadana saddex marna lagu soo ekeeyo waa sunnadii nabiga sidaas sallallahu alayhi wasallam thumma qala Uthman wuxuu markuu sida u weysa qaatay ra'aytu nabiyya nabigan arkay sallallahu alayhi wasallam tawaddaa xaala uu weysa qaatay nahwa wudu'i weysa qaadkaygan oo kale hada oo kan ah nahwa iyo mithla xoga farqiga u dhaxeeya leeyahay mithliga shayga sidii kii hore waa inuu noqdo laakiin nahwiga xoga taqriib soo dhaweyn sida ana uu weysa qaad ku dhow oo waxda uu asagu og yahay uu ka tagay aysan jirin sidaan oo kale weysa qaad nabiga sallallahu alayhi wasallam wa qala wuxuu yiri nabiga Muhammad sallallahu alayhi wasallam man tawadda qofkii weysa qaata nahwa wudu'i weysa qaadkaygan oo kale hada oo kan ah thumma sallatu kada rak'atayn laba raqo labadaas raqo la yuhaddithu ugu sheekaynayn fiima labada raqo nafsadiisa غفر الله له قفكاس الله وحو دافا ما تقدم وحي hormaray oo min dambigiisa ah qofkii markuu weysa qaato nabi maxamed wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam markuu weysa qaato qofkii laba ragcad tukada laakiin labada ragcad waxa la rabaa qalbigiisa inuu soo xaadiriyo oo waxa uu aqrinayo quraanka iyo adkaarta uu ku tadabburo macnahooda illa ilaahi buu la koodayahay oo xadiisu nafsiga ku soo dhacay iska difaaco qofka nuucaasa ilaahi dambiisa hor u dhaafa marka dambi dhaafidan waxa laga ratibay laba arimood oo la isku keeno weesaqaad nuucan loo weesaqaato iyo laba ragcoo loo tukado sidan oo aadan qalbigaaga aysan ku soo dhicin wax aan ahayn salaadaas waxay ka hadlaan waxay yiraahdaan hadii qofku markaas uu tukanayo ay qalbigiisa adduunyo ku soo dhacda laakiin isla markii uu iska difaaco waa qof jihaad ku jiro qofkaas ajarkii waa loo rajeynaa inuu helo laakiin haddii wax kale ku soo dhaqaano qalbigiiba tago oo hadba mar soo celiyo dara tago oo ku fogfogaado de ajarka haddii dhowr shay laga ratibo wuxuu ku soo xasili karaa in dhowrkii shay lala yimaado waxaana ajarka nabigu ka ratibay in weesaqaadkuna sidaan noqdo labada ragcana ay noqdaan laba ragco oo qofku qalbigiisu xaadir yahay inuu tukano oo ilaahay uu hortaagan yahay oo uu san ugu sheekay naftiisa wixii aan sidaas ay ajarka lagu مضمع الحديث الثامن حديث كسيديديه مروي وحا لغا وريي عن عمر بن يحيى المازني عن أبيه سكوريي قال وحو يري شهدت وحان حاضر عمر بن أبي حسن
sa'ala asagoo weydiiyey cabdullaahi ibnu zayd can wuduu'i nabiyi sala allahu calayh wasalam. camar ibnu yaxya waxaa la ihahdaa camar ibnu yaxya ibnu cumaara ibnu abilxasan. yaxya waa taabici, cumaarana waa saxaabi. yaxye aabihiis oo cumaaro ah waa saxaabi, ibnu abilxasanna waa saxaabi kale. labadaas waa laba saxaabi isdhaleen. weliba ibnu abilxasan waa bedri caqabi ah oo baycatulcaqabana waa ka qayb galay, bederna waa ka qayb galay. marka waxa weyan camar ibnu yaxya ibnu cumaara ibnu abilxasan. can camar ibnu yaxya waxaa laga wariyey almaaziniy can abiihi aabihiis wuxuu ka wariyey qaala inuu yidhi aabihiis shahidtu waxaan xaadir ahaa. aabihiis marka camar ayaa aabihiis ka wariyey oo yaxye ibnu cumaara ah. yaxya marka wuxuu yidhi shahidtu waxaan xaadir ahay camar ibn abilxasan. camarkaan yuu yidhi camar ibn abilxasan kaan waxa weeye yaxye adeerkiis, waa camu yaxya. ilaa yaxye aabihiis waxaa la idhahaa nidhi cumaara ibnu abilxasan, cumaara ibnu abi xasan. adeerkiisna waxaa la ihahdaa camar ibnu abi xasan. marka waa camu yaxya weeye camarkaan. camar ibn abi xasan sidaas weeye, sida saxiixa waa inaad ogaataa. camar ibn abi xasan ayaan shaahid ahaayuu yidhi oo sa'ala weydiiyey cabdullaahi ibnu zayd. cabdullaahi ibnu zayd ibnu caasim weeye, laba cabdullaahiyaa jirta, cabdullahi ibnu zayd iyo cabdullahi ibnu zayd, oodan inaan laysku qaldin la rabo. kan weysaqaadka wariya on hadda joognaa waxa weyn cabdullaahi ibnu zayd ibnu caasim ibnu kacab ibnu camar ibnu cawf alansaari almaaziniy almadaniy. maalintii yowm muxaram ee musiibada weynu ka dhacday magaalada madiina la dilay, ee hijriyadu ay ahayd 63 yowmulxara ayaa la dilay asagoo 70 sano jir. adinka cabdullaahiga wariyana waxa la ihahdaa cabdullaahi ibnu zayd ibnu cabdirabi. marka cabdullahi ibnu zayd ibnu caasim ayuu weydiiyey can wuduu'i nabiy. wowda waa la godaa markaan, waa sidii nabigu u weyse qadan jiray, ficilka nabiga ayaa la weydiiyey sala allahu calayh wasalam. saxaabada marka tacliim wanaagooda iyo sida wanaaga badan oo dadka wax u bari jiren waxaa ka mid a ficil inay dadka wax ku baraan. fadacaa cabdullaahi wuxuu u yeertay bitawrin xeero, weel ballaaran oo af ballaaran biyaha la igu keeno. fadacaa wuxuu u yeertay bitawrin xeero min maa-in biyo ah. fatawada'a waa u weyse qaatay lahum dadkii, dadkan dartooda u weyse qaatay in dadkan uu ku baro wuduu'a nabiyi, nabiga weyse qaadkiisii u weyse qaatay sidii nabigu u weyse qaadan jiray sala allahu calayh wasalam. fa akfa'a waa soo jalleeciyey calaa yadayhi, labadiisa gacmooduu kusoo jalleeciyey min atawri xeeradii soo jalleeciyey, labada gacmooduu ku shub, sacabkii biyihii ku shubta, weelka gacanta inuu geliyu diida isagoon dhaqin. fakasala waa dhaqay yadayhi labadiisii calaacalood 3 maruu dhaqay, 3 mar ayuu dhaqay. weyseqaadku halkaasu ka bilowdaa bismi llahi marka la yidhaha kadib, ficil ahaan halkaasu ka bilowdaa. uma adqala waa geliyey yadahu gacantiisii fi tawri xeeradii, biyihii kusoo qaadana, midigta in biyaha weysada lagu soo qaata la rabaa. famadmada waa ku luqluqday, wastanshaqa sankana waa ku jiiday, wastanfara waana soo fiifiyey biyihii fiifu iska yidhi 3 mar bi3 gurfaatin 3 sacad ayuuna saas ku yeelay. marka muslimka ayaa aada u sii caddayn riwaayadiisa annahu tamadmada wastanshaqa min kafin waaxidin, hal sacabuu biyaha soo qaadana, qaybna afku ku shubaya waa ku luqdan, qaybna sanku ku jiid, hal mara sidaasay ku dhamaystiran. mar kalu sidaas yeelin, mar kalu sidaas yeelin, 3 mar saasay noqon. waxaa kala ogaatay istinshaaqa iyo istinhaarku inay kala duwan yihiin. istinshaaqa waa biyaha sanka lagu jiidaya, istinhaarkana waa fiifta la iska soo leeyay. uma adkhala yadahu gacantiisii u geliyay fi tawri xeeradii, faqasala wejigiisii u dhaqay 3 mar. wejigana waa sheegnay madaxa tintiis meeshay kusoo dhamaatay ilaa lafta gar ilaa dhegta kale wey. uma adkhala waa geliyey yadayhi labada gacmood. marka hal gacanna biyaha lagu soo qaadan karaa, labada sacabna lagu soo qaadi karaa. labadii sacabuu kusoo qaaday markaan. faqasalahumaa gacmihiiyuu dhaqay maratayni 2 mar ila almirfiqayni maca almirfiqayn, iyadoo labada kusla jiraan. halkaasna waxaad ogaatay 3 waajib maahane 2 waa laga dhigi karaa. weliba waxaad kaloo ogaatay xibnaha tiro isla eg inaysan shardi ahayn, oo qaarna 3 la dhaqi karaa, qaarna waa laga yeelay karaa. ilaa hadda calacalihii iyo wejigii 3 soo dhaqay, gacmihiina 2 mar. uma adkala waa geliyey yadayhi, labadii gacmood biyihii dhex geliyey, lasoo darima marka gacantaa lasoo qoyna. fa masaxa waa ku masaxay bihimaa labadii gacmood ra'so madaxiisa. fa aqbala waa la soo qaabilay bihimaa labadii gacmood
waadbara gadaalna waa ula dib jeediyey maratan waaxidatan hal mar oo kaloo kuu cadeeyey xadiiskan madaxa inta la masaxaa inay hal mara tahay marka fa aqbala waadbara maxaa loola jeedaa fa aqbala bihima waadbara waa sidee riwaayadda soo socota caddayn doonta in macnuhu yahay in labada gacmood oo qoyan inta labada gacmood la isku qabto meesha wejigii madaxu iska saaray in la saaro gadaal jeegada la geeyo lagu soo celiyo inay tahay riwaayadda soo socota ku cadaynayda uma qasala rijlayhi labadiisa lugood ayuu dhaqay ma sheegin cadadka laakiin xadiidka Uthman ayaa ku cadeeyay cadadku inuu 3 iyo 3 la dhaqayo wa fi riwaayati waxa ku sugnaa badaa wuxuu ka bilaabay masxiid Abdullah bimuqaddami ra'si madaxa meesha ugu soo horeyda hatta dhahaba ila uu la tagay bihima labada gacmood ila qafaahu qadaadkiisa meesha jeegada uu la tagay ثم ردهما لبد gacmood waa soo celiyay hatta rajaca ila uu ku soo laabtay ila makaan meeshii alladii makaanki badaa min uu ka bilaabo ku soo celiyay sida madax loo masaxaasa labada gacmood oo qoyeen inaad inta fooda faraha isku qabato meesha tintu ka bilaabato ka bilowdo wajiga iyo madax iska saaran yihiin jeegada aad geeydo aad ku soo celido meesha ka bilowday wa fi riwaayat waxa ku sugnaa atana waxa noo yimid rasuulullaahi rasuulka allah sallallahu alayhi wasallam fa akhrajna waxaan u soo bixinay lahu nabiga ma anbiyo biyaasoo fi tawrin xeera ku jira min sufrin maar weelka maarta la iska adeegsan kara marka sidaana nabigu noogu saqatulay marka weesaqaadki nabiga waa kaasa muttafaqun alayh at-tawru tawrku waa maxay shibhu dasti baafka dharka lagu dhaqo weelka dharka lagu dhaqdo baafka kaas weel xooga u eg weeye